dad heladeena loo geystay kufsigaasoo aan ku fiicneen Soomaalinimada insaannimada muslimnimada ayaa waxaa loo geystay gabdha 3 ah oo 2 aan walaalanahay midna aan adeer u ahay midaan adeerku u ahay waa gabar aan qaan gaarin da'deeda 13 jir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودا هذا أصحاب تقاليقا قاع فرن قلبي فرن كسودا هذا برتاني قدام نيسين وبرتين كل مجرني يوتيوب سكي مني ما كسودا وفضلا عندنا وعصب تاي وعن كلنا سبسكرايب كنا صار يلاكتا يشاركا وحي فكرة دادا ونوري بكرتا قرالك إن شاء الله بإذن الله كريم وحن كهذي دونا برنامج ولكن سكري تمعد وسوق بيه 5 gabdhood oo kubsi wadareed loogu geystay magaalada Muqdisho qaasatan degmada Daynile xaafad kamid ah loo geystay wali arinteeda la isku hesheesto kullee waxa waaye barbaleenadaas waan ugu soo naqnaqdeen gabdho la iska kufsado waxooda la iska dhaco dhibaatooyinkaas waa ka wada jiraan dalka Soomaaliya boqolkiiba boqol meelaysa ka jirin ma jirto bal wax yar nala daawado insha Allah biidnillahi kariim marka ugu horreysay kiiskii dhacay dadka loo eedeysay dadka muriyaasha madax banaana ka mid ah sida haweenkiiskii u dhacay oo ka mid yahay Zakariya Timcadde oo isla markii social media soo geliyay maalinka labaad dhibkii meeshii markii la tagay dhibkii meesha ka dhacay sawiradeedii wixii dhan loo diray kiiskii uu cad yahay oo social media ay dhibkii waxa ka dhacay inuu jiro waa cad maalin wanaagsan habeen wanaagsan marka hore waxaan kugu salaamayaa muuqaalkan waqtiga ka daawanaysa page-kayga gooni ay ugu hay dhacdadii ka dhacday 14 bishan toddobaadkii hore oo ahayd maalmihii ciida maalintii koowaad ee ciida ayay ahayd 5 gabdhood oo ka imaaday xaafadda Daarusalaam ayaa lagu kufsaday lagu jirdilay lagana qaatay wax walba ay wateen oo ugu muhiimsanaa taleefanadooda gacanta halkii ay ka dhacday dhacdadaasi waxaa lagu kufsaday gabdhahaas degmada Daynile agagaarka kontaroolka degmada Daynile meel u jirto wax ka yar 50 kilomitir ayaa gabdhahaas lagu kufsaday. waxyaabaha cajiibka ee ka dhacay Soomaaliya waxaa ka mid ah labadii maamul ee halkaas joogay meesha laga rabay in baaritaan ay ku sameeyaan dhacdadaasi iyaga ayaa warbaahinta hor yimid kadibna si toos ah u inkiray arrintaasi. waxa weeye haan baraha bulshada aan uga faa'iideysana meeshan oo baraha bulshada la wareejinayo weeyaan gabdhaha la kufsaday waxba intaan la yeelay haweenadan maalmahan la wadi waxaas waxaan u sheegaynaa in ay jiraan ayagana toddobaadkan oo dacwada socotay oo iska daba dhignaa arrintaas daraadeed maanta ma rabna inaan ku xadgudubno gudoomiyaha laakiin waxa soo wadaxweyne ka sheegay ayaan waxaan ku doonaynaa inuu yahay been abuur oo ku difaacayo ciidankiisa xarumaha ku dulsiinaya gabdhaha dhibanayaasha ah sidaas awgeed dowladda dadka waxgaradka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in la horkeeno nimankaas cadaalad warbaahinta si wadajir ah ula hadlay dhacdadaas dadka ee kusaysay waalidiintii gabdhaha dhalay iyo ehelkoodii waxay ka hadlayaan sida ay wax u dhaceen iyo musuqmaasuq lagu sameeynaya dhacdadii ku dhacday gabdhahooda in naloo geystay dad heladeena loo geystay kufsigaasoo aan ku fiicneen Soomaalinimada insaannimada muslimnimada ayaa waxaa loo geystay gabdha 3 ah oo 2 aan walaalanahay midna aan adeer u ahay midaan adeerku u ahay waa gabar aan qaan gaarin da'deeda 13 jir waxaa lagu kufsaday gabdhahaas degmada Daynile agagaarka kontaroolka degmada Daynile meel u jirto wax ka yar 50 kilomitir ayaa gabdhahaas lagu kufsaday. waxaa ka xunahay gudoomiyaha degmada Daynile mudane Jacfar asagoo og inuu farkaasi ka dhacay
degmada daaymeele maalinta saddexaad waxaan aragnay asagoo gudoomiyihii degmadii dhan oo hadlaayo oo dhahayo waxaa la sheegay ayahan waxaa baraha bulshada ku batay in oo maxaa la yidhahdaa dhib uu ka dhacay daaymeele kufsi ka dhacay wax noocaas waxaas oo kale jiraan asagoo inkiraayo markii dan kadib labadii nin booliska aan la kaashanay ilaa iyo meesha ugu sareysa waxaan dhahnay dhibkaasaana loo geystay nimankaasaa loo geystay ninkaasaana lagu wareejiyey taliya khaliifaana caddaynaya inay nimankii gabdhihii aqoonsadeen uu taliyihii ku wareejiyey ninkaas waa keeni lahay dan kadib qaybtiisaa laga wacay ninkii labada nin sidii ku keenay ninkii daahir ah oo taliyihii daynayna sidii ku keenay kulay kiiskii waa lagu jiraa CID iyo waxaa ku jiraan iyo nimankii maxaa la yidhahdaa maxkamadii oo dhan xeeraalintii waa daraadda horgeeyey kiiskii waa loo bandhigay waxaa la yidhi hala soo baaro CID-ga dib lagu soo dhaqaaliya waqti baaritaana la soo siiye nimanka maqan in la raadiyo taliyaha waxaa ka mid ah taliyaha khaliif muxuu ahaaye siinka dheer oo subaxii meesha ku baxay oo soo qabtay nimankii oo muxuu ahaaye baaritaan dheer kadib la kulmay taliyaha degmada oo ku wareejiyey raggaasoo dagaal dheer kadib la soo xiray saddexduba way xiran yihiin kiiska uu muxuu ahaye gudoomiyuhu inkiray jacfar sidaas si lamid ah waan cambaaraynaynaa soomaaliya gaar ahaan muqdisho arrimaha noocan oo kale ah waxay noqotay wax ku soo laalaabtay balse inta badan waxyaabaha dhibaatada keena waxaa ka mid ah dhacdooyinka noocan oo kale markay dhacaan waxaa lagu xalliyaa qaab odayaal dhaqameed ama qaab qabaa'ilo taas oo mar walba qofka dembiilaha u fududayn karto in nolol badan uu dembiidaasi galo haddii laakiin sharciga la wargeyn lahaa qof walbana ciqaabtiisa la marsin lahaa dabcan waxaa yaraan lahayd kufsiga jirdilka iyo dhaca joogtada ay waqtigan ka socday soomaaliya haddii ay tahay markaadi kugu horeysay aad muuqaalkan halkan ka daawanaysid waxaan kaa codsanayaa inaad ka mid noqotid saaxiibada sida joogtada ugu xiran mahadsanideen aada u mahadsantahay Sakariya Timcadde maxaa la yidhahdaa waa xaqiiq markii qof dembi galo waxaa waaye oda dhaqameeda imaado fiifiyeed qofkii dembigii galay ayaa loo fududeynayaa laakiin haddii sharciga la horgeyn lahay qofkaasna kala cadaalad uu heli lahay ilaa baa cadaalad dhiibo kii dembigana mar dambe isu dembi gelin ku adkaa lahay amba kan kale ayaa waxaa naqa lahayd inuusu dembi qof dambe uusa gelin marka mar walba waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo warseen ku helnaa cadaaladda aniga noo dan tahay adigay kuu dan tahay qof walba oo islaam oo soomaaliya u dan tahay cadaaladda waxaan rajeynaynaa gabdhahaas masaakiinta oo 13 jirka ay ku jirto inay hesho cadaaladooda maxaa yeelay dadka deegaankan waa u fiican tahay oo ilmahooda u safgaroobayo gudoomiyaha xataa degmadu waa u fiican tahay hadduu cadaalad ay ka dhacdo degmadiisu waxay helaysaa amni iyo kala dambeyn fiican mar walba meesha adiga aa maamulka tahay waxaa wanaagsan in cadaaladda ay ka shaqeyso maxaa yeelay waa lagugu ammaana haddii cadaalad ka shaqeyso haddii cadaalad daro ka shaqeysana markii dambe adiga cadaalad darrada ku imaanaysaa gurigaaga imaanaysaa cadaaladda ha noolaato ayaan leenahay waxaan ku leenahay hadday tahay markii kugu horeyso aana soo booqatay nagu soo biir sidaa u heshid warar ku salaysan cadaaladda waxaan ku leenahay subscribe-ka iyo like-ta iyo share-kaba ha iloobi hadduu la yiraahdo wixii fariin oo qabtidna waanu reebi kartaa insha allah intaa video lamid aan ku kulmeen sidaas iyo nabadgelyo